بسم الله عشر كان والجبر دي عشر كيسي صدحات ويان and please and عشر دي ركون أوكي لواد هي صدحات marka kani hadda isku qaybinta iyo isku dhufshada fiirinayna haddii wax minus wata loo qaybiyo waxaan minus wadan minus waa soo haraya minus 5 bay noqonaysaa tobanka minus ka watay mugd haddana haddii wax minus wato wax minus loo qaybo isku sanaya toban laba u qayb waa 5 labadii minus waa isku sanaya haddii waxaan minus wadan sida tobankaas oo kale loo qaybiyo wax minus wata answerku waa minus minus wata hadii loo qaybiyo answerku waa minus 2 haddii labadaba minus watan was cunaya hadduu laakiin midkood minus wata sida kan iyo kan waa soo haraya minus ku day minus ku halkaas soo haraya haya isku dhufashadu waa la mid hadduu hal minus yahay waxaa dhacaysa inaad uu minus ku joogo hadduu ka badan yahay oo saxid waa istirtiraya laba minus waa istirtiraysa kan 5 times minus 2 de waxay noqonaysaa minus 10 kan hadda isaan waa loo qori karaa balance waa la gelin karaa kan laftigiisu waxay tahay macnaheeda times 5 times minus 2 asagoo kale waa minus 10 sida kale loo qori karaa waxay tahay day 5 kii balance la geliyo 2 kiina balance la geliyo la isku dhufto leeyahay minus 10 hal xaba aan ku daro oo halka hoos aan ku qoro haddii wax minus wato 5 minus wato oo lagu dhufto 2 minus wato wadata waxay isku noqonayaan maxay saas loo qori karaa minus la balance loo qori karaa waxay noqonaysaa 10 labadii minus waa isku sanayaan waayahay kala xiro xogaayir next aan aragno practice kan samee joojiso cajalka waxyaan isku day inaad samaysid markaasaan samaynaynaa insha Allah waayahan samayno kan waa minus 3 waxa lagu dhufanayaa minus 2 hadda wuxuu noqonayaa minus waa cunayaan waa 6 saddex lagu ku dhufo kan day waa wuxuu dhan isku qasay adoo hoos 3 jira baa waxa lagu siiyay labaad hoos si aad waxaad hoos jirtaa 5 kan day adoo 3 hoos jira ayaa minus la isku qasay labada minus horta naga baabiyo oo plus u bedel labadaas minus de plus u bedelmaan waxay noqonayaan minus 3 plus 2 hoos baad 3 jirta kor baad laba su'aad hoos baad wali jirta ama $3 baa lagu lahaa labad hadaan casharkan ku faraxsanayn ku hore aad ka horeey waayo casharkan waa integer operation waa kii saddexaad weeye laba ka horeysa so 3 minus 3 plus 2 waa minus 1 kana waa 5 kana waa minus iyo minus hoos baa sii jirta hoos baa jirta halkan $1 baa haysatay 6 baad wax ku isticmaashay waxa lagu leeyahay halkan wax minus la isku qaybi answerku waa tan ku niri labada minus waa isku sanayaan waxay noqonaysaa 2 marka halkaas ayaan kaaga tagay casharka gaabanka ku xiga ku dhagso si aad equations ka ugu xirato faa'iidada numberradan waxaan u baranaynaa hadda arkaysaa cashar ku xiga way salaamu calaykum waraxmatullahi